السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku tala galnay waa barnaamijkeeni koobaad maanta waa axad taariikhduna waa 15 Febraayo sanadka 2026 haddaba barnaamijkeena koobaad qodobada aan ku soo gudbinayno waxaa kamid noqon doona Iiraan oo sheegtay maraakiibta Mareykanka ee ku soo qulqulaya gobolka bariga dhexe inay u haysato gantaal ay magaciisa sheegtay kaasoo ay sheegtay in ay dhulka la jari doonto maraakiibtaas mar allaalay marka Mareykanka uu isku dayo inuu soo weeraro Iiraan haddaba cabsi cusub oo ka taagan gobolka bariga dhexe iyo wararkii ugu waaweynaa ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa Turkiga oo diyaaradiisa la yiraahdo Berqadar TB3 kaga yaabsaday dhoolatuskii ay sameynayeen gaashaanbuur neto talow diyaaradu maxay soo bandhigtay tafaasiil ku saabsan arrinka waan idin hayaa Indonesia oo ka jawaabtay hadalkii ka soo yeeray Hamas ee ahaa in aanay ciidan hubka ka dhigaya Hamas oo dagaalamaya Indonesia aanay soo diri karin laakiin Indonesia ayaa jawaab aad u wanaagsan oo Hamas ay soo dhaweysay Israa'iilna ka xanaajisay iyo Mareykanka soo saartay ku saabsan ciidanka ay u soo dirayso Gaza haddaba tafaasiisha sheekada waan idin hayaa qaybaha ugu dambeeya barnaamijkan waxaan idin hayaa dadaalada dalalka Carabta ay ku doonayaan inay ku qaboojiyaan xiisada u dhaxaysa Imaaraadka iyo Sacuudiga oo aad u sii xoogaysanaya qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya barnaamijyada aynu maanta oo ah maalinimo axada idiin soo gudbinayno ayaa markaa qodobadaas ayaan idinku soo gudbin doonaa inta ku jirno hay'siinta kadib waxdii warar ay soo kordhaan waan idin la socodsiin kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay barnaamijyada maanta oo axada aan idin soo gudbin doono hadii Allah awoodii ka raali noqdo iyadoo dhowr qodob oo muhiim ah inoo soo socdaan marka hore waxaynu ku hormaraynaa sida caadada ah wararka ka soo kordhay xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe ee u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka haddaba saacadihii la soo dhaafay warbaahinta waxaa qabsaday in Mareykanku ay soo dirayaan markabkooda ugu weyn ee xambaara diyaaradaha caalamka iyadoo horeyna uu u joogay mid kale gobolka bariga dhexe maraakiib kale oo iyaguna kuwa dagaalka ah gujisyo dhammaan halkaa la isugu geynayo haddaba markii ay wararkaas soo baxeen dhanka Iiraan ayaa isaguna saacadihii la soo dhaafay waxay sheegeen inaysan wax walwal ah ka qabin Iiraan waxay sidoo kale sheegtay maraakiibtaasu inaanay cabsiba ku hayn oo waliba gantaalihii ay la dhici lahayd marka ay dagaalku bilowdo maraakiibtaas oo ay biyaha cabsiin lahayd ay haysato oo ay diyaar tahay haddaba aan idintusoo wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray jaridda la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa saakay qoraysa warbixin ay leedahay guddida amniga qaranka Iiraan ayaa war soo saaray waxay sheegeen Iiraan inay haysato saaruuq ama gantaal la yiraahdo Khayr Mashar kaasoo awood u leh inuu bartilmaamaysto labada markab ee la filayo inay Mareykanku keenaan gobolka bariga dhexe ee diyaaradaha xambaara waxayna ay sheegeen in markaa dagaalka uu noqon doono haddii Iiraan la soo weeraro mid ku baaha gobolka dhammaantiis haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay guddida amniga qaranka ee baarlamaanka Iiraan ayaa waxay sheegeen in ay la dagaalami doonaan maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee lagu soo ururinayo gobolka sida markabkii hore u joogay ee la yiraahdo Abraham Lincoln iyo midka ugu weyn caalamka ee hadda soo socda ee la yiraahdo Gerald Ford waxayna sheegeen inay u haystaan gantaaro ay ugu tala galeen inay maraakiibtaas biyaha ku laqsiyaan oo ay ku cabsiyaan marka maraakiibtan waxaan u haysanaa dheen maraakiibtan alaab loogu tala galaan haysanaa marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin hadalkan iyo tilmaamida gantaalka noociisa
ay iiraan tilmaamayso muxuu yahay. haddaba marka waxaa leeyahay tilmaamidda gantaalkan oo u muujinaya mid iiraan samaysatay waxbaa ku hoos jiray leeyahay. sababtoo ah waxaa lagu qarinayaa maalmihii lasoo dhaafay gantaalihii shiinuhu keenay halkaas ayaa loogu talagalay maraakiibtan in nagta looga saaro. laakiin gantaalkan kale ee iiraan ku dhawaaqayso macnaha annaga midaa samaysanaan la dhici doonaa ay ka wadaanaa lagu leeyahay maraakiibtaas, iyadoo midkii shiinaha ee maraykanku hadda baaritaanka ku hayaan ay ka baqayaan maraakiibtiisu ay markaa iiraan doonayso inay dagaalkaa u isticmaasho. haddaba marka xaalku halkaasuu marayaa, weli xaaladdu halkeeda ayay ka qasan tahay. hanjabaadihii way socdaan, hawadaa laysu marinayaa, sidaasaa maaragtay qolo walba ay leedahay waa saasaan samaynayaa. haddaba kulanka maalinta talaadada ay nagu soo aadan magaalada Geneva ku dhex mari doona ayaa isha lagu hayaa, inkastoo horey loo sheegay kulankaa inaan rajo weyn laga qabin oo inay markaa maraykanka iyo iiraan ku heshiiyaan. haddaba qodobkaa isaguna halkaasa kaga gudbaynaa oo ku saabsan xaaladda iiraan iyo maraykanka wixii soo kordha waanu isla socon doonaa. shalay turkiga ayaa wacdaro ka dhigay dhoolatus ay samaynayeen ciidanka gaashaanbuurta neto ee dowladaha kala duwan ka socda, maadaama iyagu ay ka mid yihiin. waxyaabaha la yaab kale ee turkigu halkaa kusoo bandhigay oo ay madaxa gacmaha saarteen dowladihii waaweynaa ee ku jiray gaashaanbuurta neto waxaa ka mid ah diyaarad la yidhaahdo beerqadaar TB3 ayaa waxay tooganaysay dhulka, wax yar oo dhulka la dhigo ayay samada kasoo tooganaysaa. midda kale waana diyaaradda adduunka keligeed ka jirta ee daroon ah ee markab ka kici karta kuna soo degi karta. maraakiibta wuxuu samaystay turkiga loogu talagalay droniska in lagu qaado. markabka weliba sagxadiisu waa yartaa sida maraakiibta kale maraykanka oo ay ku ordayaan diyaaradaha dagaalka maaha. awal daa'ira caalamka oo diyaaradii ugu horreysay caalamka ee markab diyaaradeed ka kacda ee kusoo degta oo shiishkeeduna aanay marnaba la gafayn. markaasay gacmaha madaxa saarteenaa layidhi dowladihii gaashaanbuurta neto way yaaban yihiin horumarka dhinaca turkiga uu ka samaynayo ciidamada. haddaba wararkii ugu dambeeyey haddaan idinla wadaago, wakaaladda wararka ee turkiga ayaa waxay sheegaysaa diyaaradda daroonka ee nooceedu yahay beerqadaar TB3 oo turkigu farsameeyo ayaa waxaa la sheegay inay soo bandhigtay awoodeeda iyadoo kusoo bandhigtay dhoolatus ay lahaayeen gaashaanbuurta neto. haddaba warbixinta way sii socotay, waxaa leeyahay waxay soo bandhigtay diyaaradda halista badan ee turkiga ee layidhaahdo beerqadaar TB3 awoodeeda oo ay ku tooganayso bartilmaameedyo hadafka loogu talagalay. waxayna ka qayb qaadanaysay dhoolatuska ay nato samayso ee layidhaahdo state fast, kaasoo markaa 2026 dhoolatuskaas la samaynayay. waxaana la sheegay inay dowladaha ku jira gaashaanbuurta neto dhoolatuskaasi ka qayb galeen. haddaba shirkadda Baykar ee dalka turkiga ee samaysay diyaaraddan beerqadaar ayaa maanta oo axada waxay si rasmiya u sheegtay in diyaaraddu ay wacdaro ka dhigtay, waxaana la sheegay inay tahay diyaaradda keliya ee caalamka ee iyadu ka kici karta markabka diyaarad daroon ah oo haddana siday tahay markabka ugu soo degi karta. marka horumar weyn ayaa turkiga uu ka samaynayaa meelo badan. waataa ujeedaan in heshiisyo badan turkiga lala galayo, hadday tahay dhanka masar, hadday tahay dhanka sacuudiga. maalmihii lasoo dhaafay oo dhan shirkadaha turkigu cirkaasay marayaan. qolo kasta waxay leedahay annagaa maalgelinaynaa, annagaa erokobtarada aad samaysaan, droniska aad samaysaan, waxa aad samaysaan, gantaalaha aad samaysaan ku hayaan. marka dowladihii oo dhan adduunka ilgooniya ku hayaan hadda horumarka uu samaynayo turkiga ee dhinaca tiknolojiyadda. qodobkaa isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. sheekada kale oo xiisaha leh waxay tahay dhowaan Indonesia waxay sheegtay 2,000 oo ka mid ah ciidamadeeda inay u diyaarisay inay tagaan Gaza. warbaahinta cibriga iyo
oo maaragtay yahuudda iyo waxay leeyihiin ciidankii hadda hubka ka dhigi lahaa gaza hadduu imaaday xamaas hubka ka dhigi lahaa waa ciidankii maaragtay waa dal muslima waakaas aydheen nin la yidhaha marka Usama Hamdan oo ka mid a madaxda xamaas ayaa fariin u diray nimanka la yidhaha Indonesia wuxuu yidhi Indonesia wax ay Israa'iil meesha ka qaban weyso kama qaban kartaan ha isku dayinina ciidan annaga gadaal naga toogta inaan noo keentaan hubka dhigis shaqa kuma lehidin dagaal shaqa kuma lehidin xuduudahaasa ilaalinaysaan gargaarkaasna waa ka shaqaysaa intaa waa idiin ogolna laakiin amaa haddaa siyaasad kale kusoo darsataan alyaasiinka idin yaqaanin kadib maxaa dhacay mudaaharaada gilgilay Indonesia dhan Indonesia dadkii oo dhan isku soo baxay muslimiintii waxay leeyihiin haddaa keenteen inaa reer Gaza oo aan nafteennaba u horayno inaad tirahdaan hubkaa ka dhigaynaa markaas dawladda qaylis saakay waray soo saartay dawladda haddaba marka ay tuso warka ay dawladda Indonesia saakay soo saartay telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow qoray wuxuu leeyahay annagu ma rabno dagaal hubna cid kama dhigayno ayay tiri Indonesia waxaana arrinkaa sheegay saraakiil ka tirsan saraakiisha ka qayb galaysa howlgallada Gaza ee Indonesia ay doonayso inay halkaa u dirto haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay Indonesia waxay sheegtay ka qaybgalkeeda ciidanka caalamiga ah ee nabadda iyo deganaanshiyaha Gaza inay war ka soo saartay oo ay sheegtay in ciidamadeedu aysan xisaabta ugu jirin wax dagaal la yiraahdo iyo inay ka qayb qaataan wax la yiraahdo hubka laga dhigayaa muqaawamada Falastiiniyiinta Indonesia waxa kaliya oo ay ka shaqeynayso waxa waaye in gargaarka iyo howlaha samafalka ay ka caawiso dadka reer Gaza Indonesia de waa qaylis waxay tiri annaga hawsha kuma jirnaa Hamas annaga hub kama dhigayno ma la dirirayno annaga wax shaqo ah kuleynay male Hamas sidaas ay u ogaadeen shacabkii Indonesia oo xanaaqayna waxay yiraahdeen annagu saas ma annaga ciidankeenu meesha wuxuu u tagayaa muhiimadaas mana dagaalamayaan cid ay xabad ku ridayaan ma jirto mana maaragtay samaynayaan hubka dhigisi wax la yiraahdo sida ay Israa'iil iyo Mareykanku ay qalqaalinayeen marka hawsha marka Indonesia way iska fogeysay marka halkaas ayuu maraya alyaasiinkan oo nimankan haystaan waa laga qeyliyay waa loon caadi ma nimankan jooga Gaza Hamas al-Qassam niman caadi ma marka hawsha halkaas ay maraysaa qadar xayeysiisa kadib xiisada Sacuudiga iyo Imaaraadka oo warar cusub ay ka soo kordheen ayaynu idiin soo gudbinaynaa wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo axada aan idiin soo gudbinayno qaybaha ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu maraynaa haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa xiisada u dhaxaysa Sacuudiga iyo Imaaraadka oo cirka isku sii shareeraysa marba marka ka dambaysa dawladaha Carabta ayaa isxilqaamay midba mar ayay tagaysaa si ay arrinta u qaboojiso shalay ugu dambeysay waxaa tagay amiirka dawladda Qatar ka hor waxaa tagay madaxweynaha Masar ka hor waxaa tagay wafdi ka socda dawladda Bahrain intaas waxaa lagu dadaalayaa sidii xiisadan labadan dawladood ee walaalaha ah ee dariska ah loo qaboojin lahaa oo xaaladda caadi ay u noqon lahayd haddaba marka ay tuso wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray sheekadan waxaa soconaya dhaqdhaqaaqyo ay wadaan Masar iyo Bahrain saacadihii la soo dhaafay kaasoo markaa ujeedadiisu tahay in lagu xakameeyo isfahmi waaga u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka haddaba waxaa la sheegayaa in hadda ay socdaan dadaalo la isugu soo dhaweynayo dhinacyada haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekadan waxaa la sheegayaa sida ay qortay wakaaladda wararka ee France Press Bahrain iyo Masar inay dadaalo xoog leh ku bixinayaan sidii xiisada u dhaxaysa Imaaraadka iyo Sacuudiga loo joojin lahaa khilaafkan ayaa cirka isku shareeray bishii December ee la soo dhaafay kadib markii labada dawladood ay eedeymo badan isku eedeeyeen Sacuudiga oo ku eedeeyay Imaaraadka inuu qatar ku yahay amniga dalkiisa isla markaana uu taageero siiyo kooxaha gooni u goosadka dalka Yemen taasoo keentay Sacuudigu inay duqeeyaan shixnado ka yimid dhanka Imaaraadka
oo markaa ku sugnaa dekada Xadramut ee dalkaasi Yemen waaye marka carabtii marka dadaalay ku jiraan waxay doonayaan in balxiisadan la qaboojiyo marka imaaraadkana la yiraahdo arinta dajiya Sacuudigana arinta dajiya la yiraahdo si arintu aysan faraha uga sii bixin haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa warbixinada saaran warbaahinta caalamka wararkii ugu horeeyay ee aan idin soo gudbiyay maanta axada inta ayuu ku dhan yahay haddii alla idmo barnaamijyo kale iyo warar kale ayaan wareysaan nabadgelyo